wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore ayaa xilkii u kala wareejiyay maarayihii hore wakaaladda biyaha Burco iyo maareeyaha cusub. Munaasabaddan xil wareejinta ah oo ka qabsoontay xarunta wakaaladda biyaha Burco waxa ugu horeyn ka hadlay maarayihii hore wakaaladda biyaha Burco Jaamac Maxamed Cali waxaana si qoto dheer uga warramay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu xilka hayay. waxqabadkaygu isugu jira laba nooc waa waxqabad socday markii hore adu sidoo doonaa haw gurguurtee oo wax ku sii darnay iyo wax cusub oo aan ilaa intii qaaraan markii ilaa sidii wakaaladda loo asaasay aan hore uga hirgelin gobolka iyo wakaaladda toon xaddiga total waxa wakaaladda lacagta lagu lahaa maalinta la wareegnay waxay ahayd $270,000 $300 yar la $270,000 waxa u raacayay iyadoo intaasoo dhan mashiinay leedahay wakaaladdu waxay leedahay gaadiid bay leedahay ceelal bay leedahay asad intan ka qaalisan bay leedahay waxaasoo dhan qudhooda ay wada dhitiyaan maanta dhowr wax baan wareejinaynaa waxaan wareejinaynaa deyntii maalintaan la wareegnay intaan sheegay ahayd oo 80,000 maraysa waxaanu bixinay hadda 12 bilood aanu maamuleynay aanu maamulka joognay waxa dhinac socotay inaan wakaaladda maanta $1 aan lagu lahayn oo aan wareejinayno iyadoo waxba lagu lahayn $1 aan lagu lahayn $1 maanta waa 19 mishiin inta shaqaynaysa markii aan 16 baan 3 mishiin baan kusoo kordhiyay waxaan biyo baraadinta 10 kilomitir aan sameynay waxaanu gaarsiinay xaafadaha magaalada markii hore boodo dhaami jireen oo biyaha heli jireen haba yaraado waxaan mad labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqayaa sidii wanaagsaneed aan wada shaqeynay jaamac iyo shaqadii balaaneed ee nala qabtay xil wareejinta oo maanta sameynayo waxay u tahay guul shaqaaluhuna aad bay ugu niyad samaysan yihiin. maareeyaha cusub ee wakaaladda biyaha Burco Cabdixakiin Maxamed Maxamuud ayaa dhankiisa madasha ka hadlay waxaanu soo bandhigay waxyaabaha uu qaban doono. waxaan mar labaad sagootiyeeya oo si sharaf loo karaamo leh oo hambalyo iyo kalgacal uu ku jiro kusii sagootiyeeya maareeyihii hore jaamac oo ka soo sheekeeyay taariikh ama background aad u wanaagsan oo wakaaladda sanadkii ama xilligii qaamlaha uu joogay kale uu horumar gaarsiiyay hawshii halkii bay noo taallaa. maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo wasiirka horumarinta biyaha Somaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore oo munaasabadda ka hadlay ayaa hadallo mahadnaqa ku sagootiyay maareeyihii hore waxaanay la dardaarmeen maareeyaha cusub. maareeyaha Cabdixakiin maanta la soo magacaabo waa maareeyii afraad 6 sanadood intaan xilka hayay ilaahay waxaan marxaati uga nahay shaqadiisii ka soo baxay ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa ta'aala Cabdixakiin isaguna waa nin dhalinyaro macaan in ilaahay halkiisii iyo meel ka sii wanaagsan uu noogu buuxiyana ilaahay baan ka baryay tusaale waxa kuugu filan $270,000 oo sanad bixiyay intaas tusaale kuugu maareeyihii hore wakaaladda biyaha Master Jaamac waxaan leenahay waa ku sii sagooteynaa shaqadii wanaagsaneyd ee aad ka qabatay magaalada Burco intii aad ka ahayd maareeyaha wakaaladda biyaha adiga oo fagaaraha maanta la isugu yimi dhayda kaga cadeeyay sidii aad ugu timi iyo sidaad maanta kaga tagtay waxaan mudada dheer u soo maray inta qiimaha weyn ee ay wasaaradda horumarinta biyaha ay ugu fadhido wakaaladda biyaha ee Burco iyo sida uu mas'uuliyadda iigu qanciyay meeyarkii hore oo aan sharaf uga dhigayay inaan goobjoog ka noqdo wixii uu dalka u qabtay sanadoodii Somaliland joogay waa shakhsiyaadkii aan oran karo waa dadkii ugu mudnaa ee aan mas'uuliyad u kulano ee Somaliland inta ay Ahmed Kaafi Bulsha TV Burco.